haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku diran yahay, fadlan ha fiirsan. sheekadani waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Aamino. Aamino waxay ka shaqaynaysay shirkadda Western. Maalin iyadoo kambaniga shir lagu qabanayo ayaa Aamino waxay ku aragtay wiil aad u furfuran, dhibaato kasta oo xagga shirkaddana ka imaato asiga xalinaya. laakiin Aamino dhibkeeda wuxuu bilowday markii wiilkaas ay la saaxiibtay. Aamino iyo ninkii wada sheekaysi dheer kadib, ninkii wuxuu fiyooro siiyey Aamino. Aamino waxay weydiisay sababta uu fiyooraha u siiyey. ninkii wuxuu ku yidhi, ubaxani waa ubaxa nolosha, aniga ayaana ku siiyey, ee hadda wax lacag ma haysaa. Aamino boorsadeeda ayaa 1 shilin ka soo bixisay, ninkii ayaana siisay. ninkii asigoo dhool cadeynaya ayuu wuxuu ku yidhi, aniga waxaan leeyahay meesha fiyooraha lagu iibiyo, shaqadeedina kambanigan keliya kuma xirno. kadib Aamino fiyooreeda ayay iska soo qaadatay wayna soo baxday. Aamino markay gurigeeda imaaday ayaa waxay aragtay fiyoorihii warqad yar ee ku dhex jirtay. warqadii markii ay fiirisay Aamino, warqadda waxaa ku qornaa meesha laga soo iibiyey fiyoorihii. kadib Aamino waxay go'aansatay in mar labaad ay la kulanto ninkii. markay tagday Aamino aad ay u naxday, sababtoo ah habar duq ayaa joogtay. habartii duqdana waxay ku dhahday, meeshaan aniga ayaa iska leh, qof igala shaqeeyna ma jiro. isla markii Aamino waxay soo qaaday fiyooraha waxayna u keentay naag shirkadda ugu soo horeysay, waxaana tustay ninkii sawirkiisa iyo fiyooraha uu u keenay. naagtii shirkadda ugu soo horeysay Aamino waxay u sheegtay in ninkan oo markasto gabar kasta oo ku cusub shirkadda uu fiyooro siiyo, kadib lacag yar ka qaato. markaas kadibna kaamirad ayuu ugu qariyaa gurigooda, wuxuuna ku rokaateeyaa lacag. Aaminona waxaa loo sheegay ninkan inuu caan waxaas ku yahay oo dhibaatooyin badanna uu geystay. isla markiiba Aamina cabsi iyo welwel ayaa ku bilowday. naagtii shirkadda ugu soo horeysay Aamina waxay ku tiri, alaab kasta uu ninkaas ku keenay ii keen. kadib Aamina waxay isku soo aruurisay alaab kasta oo ninkaas u keenay, waxaana ku soo aruurisay kartoon. kadib Aamina waxay aragtay buug. buuggaasna waxaa u keenay ninkii. buug warqad yar ayaa ku dhigneed. warqaddii markii ay ka fiiqday, Aamina aad ay u naxday, sababtoo ah waxay aragtay fiyoore qalalay buuggii oo ku sawiran. fiyoorahaas gadaashiisana waxaa ku jiray kaamirad. kadib waxay gubtay Aamina dhammaan alaabtii uu siiyey ninkaas, laakiin ninkii kama daba harin. markasta wuxuu message u soo diraya Aamina. Aamina way carootay, kadibna moobeelkii ayay dhulka ku dhufatay, waxayna soo iibsatay moobeel kale, nambar kale oo cusubna way samaysatay. laakiin Aamina weli waxay hilmaamtay buug kale oo ninkaas siiyey, kuna dhex qarsooneed kaamirad kale. fadlan ha hilmaamin in aad fiidiyoga like garayso. 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억나지 너의